waaye warkii hore war soo dhaaf hadalkii horeba hadal ka darnaa yimid maanta waxaa soo gabagaboobay kulan xasaasi ah oo magaalada muqdisho ka dhacay Ethiopia oo soo bandhigtay inay rabto inay ka qayb qaadato dhoolatuska ciidamada badda ee dalalka bariga Afrika ee la rabo in lagu qabto xeebaha Soomaaliya iyo Djibouti iyo Soomaaliya oo gaashaanka u daruurtay marka hore idin fasaxo hadalka wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya uu ka yiri arrinkan hawray go'aankiisa loo gaaray ayaa muran badan keenay oo ku taasabsan maritime exercise yani dhoolatus xagga badda ah oo dawladahani ay sameynayaan horay loo soo gaaray oo ma ahan dhoolatus ciidana laakiin dhoolatus oo xafiis gudihiisa ka dhacaya oo scenarioskii wixii Soomaaliya marka waxaan ka muujinay arrintaasi walaac baan ka muujinay waxaanan sheegnay inaan biyaha Soomaaliya dawladaha badda leh kaliya inay noqdaan dawladaha ka qayb gali kara arrintaas oo kale arrintii waxaan la qaatay inaan Soomaaliya baddeedana aysan arrintaasi ka dhacayn Soomaaliyana aysan ka qayb galin arrintaas marka arrintaas aan hadda saxiixnay badda Soomaaliya wax exercise noocaas oo dawlada aan bad lahayn ay uga qayb galayaan ama ku xalaalsan karaan inaysan Soomaaliya raalli ka ahayn way sida maqlayseen wuxuu ahaa fiqi oo yiri Soomaaliya way diiday ka qayb qaadashada wadamada aanan badda lahayn landlocked ah Ethiopia ayuu ka wadaa in ay ka qayb qaataan dhoolatuska ciidamada badda ee bariga Afrika waxa meeshaas iga muuqdo in dalalka kale oo dhan ay aqbaleen Kenya laga soo saxiixday Djibouti laga soo saxiixday Tanzania laga soo saxiixday Eritrea ma aqaan ugu jirtay in kale laakiin waxa u muuqata Ethiopia in dalalka kale oo dhan ay soo dardartay ee maanta soo bandhigtay Soomaaliya inay saxiixdo warqadda la soo hordhigay ee ahayd Ethiopia iyo ciidamada badda iyo maraakiibteeda dhoolatuskan waa ka qayb qaadanayaan horta waa ku faraxsanahay in fiqi uu sidaas yiraahdo waa ku faraxsanahay in Soomaaliya ay dhaxdo kuma jirno hadii Ethiopia la keenay kulankan waa wuxuu kamid yahay kulanka kulamada ay isugu imaadaan ma ogtahay wasiirada gaashaandhigga hab u badnaadaan kuwa bariga Afrika Ethiopia Soomaaliya Djibouti Kenya Uganda iyo waa isku imaadaan sanad walba way kulmaan mar kulanka markuu wuxuu kamid yahay sanad kulamadoodii dib ugu fiirnaayeen waxyaabaha ay qaban doonaan 5 sano ee soo socoto iyo dhoolatuskan wuxuu kamid yahay waxyaabaha miiska u saaran in ciidamada Navy-ga dhoolatus badda laga dhex sameeyo maali ka dambayso wararkan yaab kale Ethiopia kaskasa u soo gurguurinaysa waa dal fiiri Uganda maanta meeshii fadhis Uganda malahan iyadana waa landlocked malahan xeeb iyo bad iyo mala waxay tiri markii qaybtaas la gaaro aniga banaanka ka fadhiya murun ma keenay Uganda tiri Burundi Rwanda ayagana sidaas oo kale dheen aniga murun ma keenayno bad ma leeyin meesho yaroo webi ah iyo haro iyo lakes waxay dhahaan ay leeyihiin Ethiopiankii maanta meesha u fadhiyay oo ah ninka u qaabilsan arrimaha dibadda wasaaradda gaashaandhigga meesha fadhiyay kiyaaba la soo boodo warqad Ethiopia lagu daro taasoo macnaheedu uu yahay ciidamo maraakiib iyo balaaya u diyaarsan waaba diyaarba ragga inay ka qayb qaataan dhoolatus dhanka badda ah intaas